haddaan ahay dahabshiil group inaan ka soo qayb galno xiritaanka tartanka xiriirka fardaha oo markii ugu horeysay Soomaaliya laga taabageliyay runaantii shirkadda dahabshiil groupna ay noqotay kambanigii ugu horeeyay oo taabageliya ama sponsor ka noqda tartankaas maanta gabagabadiisa iyo qaabka quruxda badan oo ugu soo dhamaaday runtii shirkadda dahabshiil mar walba waxay u taagan tahay inay dhiirigeliso xiriirada kala duwan ee Olombikada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dhammaan ciyaartoydii tartankan ka soo qayb gashay kuwii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay intaba waxaan leeyahay tartankan xiriirka fardaha Soomaaliyeed inuu joogto insha Allah haddii la yiraahdo shirkadda dahabshiil groupna mar walba xiriirka fardaha garabkooda ayay taagan tahay insha Allah haddii la yiraahdo in aan soo gabagabayno tartankii aan galabta furnay oo ku saabsanaa tartanka ciyaaraha fardaha Muqdisho tartankaas waxaa inoo soo qaban qaabiyay xiriirka Soomaaliyeed ee fardaha waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta shirkadda dahabshiil group oo mar walba u taagan horumarinta isboortiga dalka waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ciyaartoydii laga badiyay iyo kuwii badiyeenba labadaba ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan intii ka soo qayb gashayna runtii aad iyo aad ay ugu madadaalseen waana mahadsantihiin runtii xiriirka fardaha Soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay mar waliba inuu horumariyo waxaan mar kale si gaar ah ugu mahad celinaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo dahabshiil group oo ayadana nagu garab siisay tartankani inuu noo qabsoomo misna uu heerkan soo gaaro waxaan mar kale u hambaleynayaa naadiga soo baxay ama guuleystay ee koob ka qaaday iyo naadiga kale aan guuleysan runtii waxaan u qabaa in dhammaan fardoolida Soomaaliyeed ay galabta guuleysteen macnaheedu ma ahan haddii aad guul dareysatay in aad xun tahay macnaheedu ma ahan haddii laga guuleystay in aad tartankii misna ka hartay tartanku waa nasiib waana calaf runtii qof waliba inuu aqbalo natiijada uu Ilaahay halkaas ka siiyay runtii waxaan ku dadaalnay inuu tartankan ku qabsamo si fair ah ama xalaal ah TV-yadu way baahinayeen runtii muuqaal ayaa halkan yaala mar walibana wuxuu xiriirku u taagan yahay inuu ka dheeraado wax kasta oo qalqal gali kara ama mugdi keeni kara ama kalsooni darro abuuri kara